hay'adda Haro ayaa waxay deeq raashin ah iyo waliba bacaha roobka waxay u qaybisay qoysas ay saameynta xooggan ku yeelatay abaartii dhawaan dalka ka dhacday iyo waliba cudurka shuban biyoodka dhawaan ka dilaacay deegaanka Galchano ee gobolka Cayn. hay'adda Haro ayaa markii labaad deeqdaasi deegaanka gaarsiisay waxaana ugu horeelka ka hadlay Sheekh Cabdilaahi Jaamac Haruun oo isagu wakiil ka ah hay'adda Haro iyo qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka deegaankaasi waxayna si weyn uga mahad celiyeen mas'uuliyiinta hay'adda Haro iyo Sheekh Cabdilaahi Jaamac Haruun oo deeqdan soo gaarsiiyay waxaana ay sheegeen in hay'addu ay qayb lixaad ka qaadatay xaaladda haatan ka taagan deegaankaasi waxaana ka mid ah hadaladoodii hay'adda Haro oo fadhigeedu yahay Mareykanka بإذن الله وعونه وحان سو غارسين لي ديق وبدن هوي ساعد جيدان بعهاس هويغاس oo ka kooban 325 qoys shiraac cud iyo quudin 80 qoys oo qoys waliba leeyahay shub daqiiqa iyo caagad saliida ilaah baan u mahadnaqaynaa mar labaad ilaah baan u mahadnaqaynaa mar saddexaad waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda Haro iyo jaaliyadda Mareykanka ee Soomaaliyeed ما مركي هوريسي سو غارسيسو بيشي naga dhamaatay dhexdeedii baan keenay waxaan ka soo bilownay magaalada leeyahay qararo ilaa iyo waxaan gaarsiinay meesha leeyahay xaran inta hay'addu raashinka cashada Haro way wada gaarsiisay maantana waxay ka soo qaybisay higla ka dhacda ee meesha leeyahay dhoobo guduud iyo meesha leeyahay xamar lagu xid galabtan waxaan joognaa Galchano biidin Ilaahi way sii socon doontaa hay'addu in badan oo gobolada Soomaaliya wax ka qabatay sida Taleex Booc ama Werwer Laascaanood iyo meelo kale oo fara badan area-dana hadda saameynta badan bay ku leedahay waan u mahadnaqaynaa Ilaahay mar labaadna waxaan u mahadnaqaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo hay'adda Haro aad bay u mahadsan yihiin hay'adda Haro iyo howlwadeenadeeda waxaan kala aad u mahadnaqaynaa Sheekh Cabdilaahi Jaamac Haruun oo mar walba kiilka iyo la garab taagan inuu maartay soo gaarsiiyo oo u hadlo magaalada Galchano aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa ugu daran roobkii waa bilowday nadaafadii baa khatar ku jirta iyo caafimaadkii musqulay u baahan yihiin dadkaasi 300 iyo 25 qoys halka degani wax musqul kala ma leh 325 qof wax hoy caadi u kala ma leh waxayna leeyihiin kuwa daa oo duqyaala وعريامة ودمرة وأمولي وهذا الشيء وبياه وحرياه كل شيء أنت سيلي أنا كعبدينا إن أنا كلور جني هيدا هرب رابطي أي نوكينين ومعناها شراعية ذا روب كلا جالو صدق بقول يوشان يلا بعتن ويس شراعية دي يو برف يسليد يجونا أسيدتهم كويس ومن شو برا يحاجة سليدة رابطاس وأنا معرفة وينوكينين وأنا نكبر دوني مكاتنا ده وح أسوي كيو بعد أسوي بعد مكاتيا مكا إلهي بعد حدله وهرنا وينوكين ترى وينوكينين hay'adda Haro in soo gaarsiisay raashinka iyo bacaha hoyga horaan ugu keentay raashin hadda ku reeyay mar labaadna hoygii iyo raashinkii isku dartay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ilaah baa mahad leh wadaadada soo gaarsiiyay sida sharafta leh markii hore nagu kale markana nagu kale aad bay mahadsan yihiin waana kala wareegnay baahiyaha faraha badan ee ama wadaadada ama maayir ku sheegay waa jiraan wadooyinka qoysaskan maanta la gaarsiiyay deeqda isugu jirta bacaha roobka iyo waliba raashinka ayaa si weyn ugu mahad celiyay mas'uuliyiinta hay'adda Haro waxayna sheegeen in markii labaad ay hay'adda Haro ay deeq raashin ay gaarsiisay deegaanka Galchano ee Buuhoodle waa Cali Cismaan Sacad Dhagjaay wararka Facebook caalamiga Ismaaciil iyo magaalada Buuhoodle